السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. channel كداوني سوى ليلى أحمد official كسر دوات channel كيا هذاك عصبت هاي channel كيا نقول لك subscribe like وإيمين ينشر كريه وحن كلها هاي هذا هو اللي جوت داوشة داوني سعادة ومحسنت هاي like تناجي لوبين ما أنت يا رجوا حرجوا ولا شيء مريم نقول يا رجوا مرتفع هاي channel كيا أنا مرتفع كتر هاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذا سلام الدمان أصحابت الليلة سود دوادة وحنفلي عين العافيمات قبل سيدان أنا قبوا عافيمات قبنا هذا الجنة الكوكو عصبتها سبسكرايب صار شير لدي هدي أظهر وجوكتنا نول لايكري كومنتيكا وقروح دبلنا هوسنا وبسوقر آد بدو ما تنتين مانتا وشاكي صدون أنت حكي شاكي سربنا وانا كفر أحسن هاي هل كان كسلامينا فهيمو إيوه قدر سida title ugu aragteen fahim iyo qadar fahim oo ka soo hadashay qadarna ka soo hadlay qadarna raali gelin ka soo bixiyay fahimna ay raali gelin ka soo bixisay Soomaaliyeed ay tiri ma sha Allah sida hadda isku raacdeen hada wadankeena isku raaci lahayn shanta Soomaaliyeed Israa'iil aad baad u fiicnaan lahayd insha Allah fahim way Israa'iil tuntaa waxaana lagu heliyay oona inaad dumar tahay anagana aan dumarnahay waan kugu helinay adna waxaa laga rabaa de hiliska lagu hiilay inaad adiga xibinteeda ka soo baxdo maadaama aad ka soo baxday oo tiri halayga raali noqdo qalad lagu dhici tiray hada fahime oo kula kaftamayay waxay tiri fahim inaad taqaanaa shaleemadee dhahday ninkii yaqaanay fronta inay kala ma aqaanay tiri shaleemo raali iska dhaafay nin walba gurigiisa dhalaa u taalo marka waxay tiri shaleemada hindi waxaan ka fiirsan jiray baan copyright soo dhahay tiraan soo qaatay waa soo xadeeday maadaama aan soo xadeeday de waxa kaaga maleynay axaar igu noqday dhahay marka la iga wareejiyo de qofka bini aadamka ku soo fariisto meel oo ku fiin yahay qof macquul yahay waraada de way iga dhacdo marada hal iga raal noqdo de waa caadi xabiibti wala shay qaalida tahay anaga orta maxaan lahaay gabdhaha Soomaaliyeed dan ka soo turjumaanaan ka soo hadlo anaga dhamaan gabdhaha Soomaaliyeed aad ku faraxsanahay waxa adigu faraxsantahay ba anagana farxad noo ah laakiin waxa ku leeyahay jooji markalena ha sameeynin waayo hadaa sameeyay markale horta hadeer waxa ogaataa fiimooy inaad ogtahayna waa laga yaabaa YouTuberista dhan gabdhaha lamaanaha oo faraxsan oo maxaan lahaay oo dadka ay ku xiriireen dadka inay kalsoonida kala naqanayaan waxyaalahan hadii la arko waa siday u tiray maxaa la isha gabadh walaashii YouTuberska ka soo hadashay way tiri mar dambe yaa la sameeyay waxa sameeynaysa qadar waa la soo hadlay anagana waa la hadlaynaa maadaama aad waxaan sameysay haday ka ahayd isku ogeedeen sheekada oo ahayd sheekada isku ogyahay sida dadkaada aad u dhageysanay oo qadar qalad ahaan u soo dhigay aadna ugu qalday oo ka xanaaqnay oo aad ugu xanaaqay in naftirkay shakhsiyadeeda markaan ka hadlo ma aha madii qofka la jecel yahay oo qofka bini aadamka qof walba horta dumar hadii la qof walba qofku jecel yahay uu hadlaa صح wuuna u tan sheegtaa wax walbana waa laga wada hadlaa صح wuxuu aad ugu qaldan yahay in aadna qosashadado safadhiso asagan oo qoslo oo qof walba oo soo dhigo videoga oo dadkana aad ka nixisiin yani waxa isdaalay lahaanteeda de waxa way is ogaayeen lacagta ka raadi aheedaba ka dhaaqaado dadkan dhaawac ma gaarin ba asna dhaawac ma gaarin ayadana dhaawac lama gaarsiin horta aniga waxaan fiirsaday soo hadlay wiilka oo dhahayo halayga raali noqdo qaladkaasna waa galay wax walbana aniga ku qaldanay imaamadana halaygu tuuro shacabka Soomaaliyeedna ha iga raali noqdaano horta marka ugu horeysa raaliyaan ka nahay ilaahayna raaliha ka noqdo dhamaantiina raaliha idinka noqdo ummadda muslimiinta oo dhan dhamaantood raali ilaahay ha ka noqdo maxaa la jira qaladna wuu dhacaa qof walba bini aadmiga qalad uu galaya laakiin qaladka halkii laga soo noqdaa ugu wanaagsan waxaan filayaa inaad qaladka ka soo noqoteen wixii dhacay way dhaceen haddana way dhici doonaan wax cusubna ma ahan adduunka wax walba dhaco marka insha Allah guul baan idin rajaynayaa ilaahayna wixii soo dhac mar dambe idin ma soo celiyo fiimana hadalkeeda waa dhageysadii oo dhays uu iga tagay waqtiga aan garabka ka rabay oo ani wiilkayga inuu nacaawiyo aan rabnay waqtigaas aan ku jirnaa laakiin wax kasta way dhacayaan fiimo wax kasta maanta waxay soo dhahday ma fiirsanana ku sheegay maanta waxay dhahday halayga wareejiyo dadka YouTuberska la hadashay halayga wareejiyo iga dhaafa shalay adaa dheysay moogtahay fahim adaa shalay dheysay
wuu iga tegay wuu i dayacay wuu yeelay ma fahantay dee aniga waxaa u fahmay bisheekada meelay jirto Soomaali dhan way ku wareertay Soomaali dhan sidaan u wareertay meel loo qaaday meel kale ma la yaqaano haddana waxay ahayd markaa video araalgelin soo dhigaysid inaa idinkoo is ag fadhisiin araalgelinta soo dhigtid aadna ka sheekaysid qaladka uu kugu sameeyey oo tiraad qaladaadka ugu sameeyay wax jiro haddana ay tahay maadaama wax walba inay inaagtiisa iska raaligelin karaan dee waa iscafinay waana israaligelinay laakiin ma ahan inaad farxiyo ka biraad gabar baa inta koor madax jug iga gaarsay kaali iga celi farxiyo ka bir horta inta ka salaameena waa gabar geesiyad ah waa gabadha noo joogta anaga maxaan lahaa isha gabar walba dhib gaar oo gabadh u hadasha ما شاء الله أنت فرحي أنت كسلامينا أنا غير قاهرة دان هاي فنانتنا هاي أرتأكتين وكوين هاي سلام سلام halkan waxaan ka salaamaya anigoo jaaniskan uga faa'iideysay ma aqaan weli jaaniskan meelin mugta anoo jaaniskan uga faa'iideysay waxaan halkan ka salaamaya walaashay Farxiyo Kobayar oo aad aan u jecelahay dhamaanteena aan u jecelnahay waxaan ku jecelahay sida geesinimada lahay mar walba oo hadasho iyo sida ay ugu heeliso shacabkeeda Soomaaliyeed amba gabdhaha Soomaaliyeedba marka Farxiyo ku salaamaya sii soco gabar walba Soomaaliyana waa walaasha oo qalad laga galayo adigana qaladkaaga ma fiirsan doono oo ku sheegayna adigana sida qaladka dadka ugu sheegto aad baad u mahadsantahay waana kaaga mahad celinaya geesinimada ya ma sha Allah waa qof geesiyad halkaas ugu soo noqonayna Farxiyo salaam ku soo marina fahim horta anaga waxaan ku leenahay qadar iyo adiga nolol khayr qabto nolol fiican oo wacan ku noolaada qaladaad kastana mar dambe iyo soo dhicin dadkana kalsoonida ha ka burburinina hadda waxa u maraysan inaad magac sameeysan ku haya dad badan oo qurbaha jiro oo naagahooda soo wadi raba ka warraday shakada loo dee Farxiyo ka hadashay of course Farxiyo waxay dhahday rag badan oo waxay dhahday Farxiyo wallahi codadkeeda aad iyo cajiib waxay dhahday Farxiyo qof waxay dad badan ay dhahday oo maanta Afrika joogo oo rag ah oo shaqaysan lahaa oo Mareykan ama meel walba wadan meel walba macnaha qurbaha la geey lahaa dee naagahoodii kalsoonida kala laabtay nadaan u wacan dee qof walba meeshuu joogo كنا حيبة ما فهمتي أنا حتى نيجي وودي لهاي وكان ديو جيران وكاسا هذا واحد والبعض سنة ويا قدر بيرك في عناية ما لهن قفل بك قدر يديك عاد فيلينج عاد دكتين قفل بميل بو فرستي ده فيلم أيضا تربطه هي واحد حيت الفيلم بو والله فيلم كان ورد وانا فيلم كان ورد لكن مع الصبية قدم بولا لكن ما قد من فيلم كان فيلم قدم بس ده فيلم كان ما قد من أيضا وشفت فيلم إنه qalad naqday oo micnaha halaabay marka waxaan ku leeyahay hada gabadha aan budigeedu iska wada lahaa adaan ugu kalsoonida badan dhaho ya odayga wuxuu ku jiraa inta qaana Istanbul ya wala kala tagaya miya Allah ma agi joog laakiin intaas oo dhan anigu waa idin dul qaadanaya dibna ma lahan soo dhawaada waan idin salaameynaa dhammaan intaasna waxay ahayd kaftanay wallahi waxa ku sheegaya dad badan oo micnaha waxa jiro hadda anaga waa iska kaftaneena laakiin dad badan waxa jiro oo adiga aad micnaha labadiina familkiina oo micnaha dad badan igu dayanayo oo micnaha ni jeclaa oo maanta ni jabay oo maanta micnaha yaaban jiro marka waxaan leeyahay Soomaalida horta ishooda Ilaahay niga koriyo oo dad ehelkiina waa dad ni jecel waa dad ni xiraan qaladaad kasta mar dambe ha sameynina dadkii Soomaaliyeed qaladaad kasta oo ugu digaayo insha Allah inay sameeynin way maani laakiin wax la arkaya maani laakiin wax la dhacaya laakiin filimkan wuu gadmina laakiin filimka waxa lagu ciyaaray markii codadku soo dhigay iyo markuu yiri baraangi waay Soomaalidu fuul waay التوريس عندي التوريس واحد دواء السلام دمان أصحابي سود وهذا سبسكرايب شير لايك كومنتي كقروح ده بدن أوجد لبنا قضاء ديرة مش صفر استوى نقول عيبيني قبل عمامة ده الله صار الله عمامة ده قبل دواء فهمتنا عملنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته